khurba joogta qarniyadii hore ee badmareennada ahaa Ismaaciil Nuur Faruur Buur. Qarniyadii hore waxaa jiray rag badan oo Soomaaliyeed oo dalka ka dhoofay oo badmareenno noqday ayagoo ujeedadoodu tahay inay dibadaha ka soo xoogsadaan. raggaas oo badankoodii reer miyi u badnaa waxay ka shaqayn jireen maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay oo iyaga oo badeecado ku raran qaaradaha dunida isaga doosi jirtay. raggaasi sida la sheegay waxay ahaayeen kuwa dhaqankii dhulkoodii ay kala tageen ku adag. tira ahaanna ma yareen raggaas, hase yeeshee kuwii caanka noqday waxay ahaayeen keliya intoodii suugaanleyda ah ee maansada taqiinay, sidaasna magaca ku yeeshay. haddaba kuwoodii ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Nuur Faruur Buur oo ahaa gabyaa iyo maansayahan murtiile ah. sida uu soo wariyeyna Axmed Faarax Idaaja bartamihii qarnigii 20aad nolol buu ku soo gaaray Ismaaciil. maansooyinkiisa ugu caansanaa ee uu tiriyey waxaa ka mid ahaa markii xaaskiisa ay haween kaloo dariska ah ay u yimaadeen oo ay ku direen ninkeedii Ismaaciil oo markaas safraayay. Ismaaciil markay u caddaatay in xaaskiisa lagu diray ayuu aftahannimadiisii maciinsaday oo wuxuu tiriyey tix uu ku maslaxaya xaaskiisa una ballan qaadaya safarkiisa dambe uu dalka ku soo noqonaya inuu wax walba oo ay jeceshahay u keeni doono, uuna haweenka kalena uu baro dheeraysiinaya, ugu dambaystiina uu ka codsanayo inay u dulqaadato. tixdaasi uu u tiriyey ayaa ah: naag yahay balani waa intaan beledka joogaahe, waxaan karaarka baraxa ugu shubaa inaan baqoolaaye, biraan socon haddii aan tashiga laygu beenayne, baabuuradan raacayaa boorsaciid ayaan qaban, badda markaan tagaa risqiga lay badbadiyaaye, waxaa lay ballaqayaa albaab buuxa weligiiye, berberaan ka soo degi anoo haysta maal badani, way kuu baryootami kuwa ku baduulaaye, haddaanan bakhtiyin dumar anaa kaa bara dheerayn, ibaxnaani naag yahay sidii baalha fududaan. dabadeedna sida la wariyey Ismaaciil ballanqaadkaas wuu ka dhabeeyey. soo laabadkiisa dambena wuxuu afadiisa u keenay marasho iyo dahab haweenkii ku diri jiray ay ka maseereen kana baryeen. sidoo kale Ismaaciil mar ay dekad ka mid ah dekadaha bariga dhexe ay ka degeen ayaa asxaabtiisoo ajaanib u badan ku yiraahdeen asaga iyo badmareen kaloo Soomaali ah oo jaamac la yiraahdo waan tumanaynaa caawa. Ismaaciilna asagoo dhaqamada noocaas ah ka talaalan ayuu dalka dibadda uga baxay. hiddihii lagu soo barbaariyeyna aanu ka weecan. jaamac ayaa xoogaa damac yar galay, Ismaaciilna wuu diiday. tix waana ah ayuu u tiriyey jaamac asagoo leh: bisinka xalaal jaamacow lagu bireeyaaye, ma baneen shareecadu hablaha inaynu boobnaaye, bilicdoodu waa qaadigood ula bareedhaaye, anuu ciradu boosh i tahay baastar dhali maayo, barkin iyo firaash aan dhigan boor ka kicin maayo, niman iiga baahneen carruur boqole siin maayo, biri yoolka khayrkaan la tegin maanta bi'in maayo. gunaanadka muuqaalkani wuxuu yahay in dadweynaha Soomaaliyeed ha ahaadeen diyaasbaro ama ha ahaadeen daljoog inay dhaqankoodii iyo hiddadahoodii toosan ayna ka weecan, ay mar walbana ku dheganaadaan dal iyo dibadba sida awowayaasheeni hore oo uu tusaale u ahaa Ismaaciil Nuur Faruur Buur. baaraka allaahu fiikum. waa walaalkiin Baazi Busuri iyo barnaamijkii horumar ummadaada.